أمال محمد محمود وجبر 18 سنة جرأة سنة كي 2018 ayaa dhowr xabadood waxaa kaga dhuftay lugteeda midig ninkeedii oo ay horey u kala tageen oo ah askari ka tirsan ilaalada madaxtooyada Soomaaliya sida ay sheegtay isaga oo doonayay in si qasab ah ay isugu noqdaan ama uu ka qaato canugu ay u dhashay askari dowladda u shaqeynaayo oo madaxtooyada ka shaqeynaayo ilaalada madaxtooyada ka tirsan intaas u sanaan sariir saarnaa maalintii ugu xumeed oo aanay guriga caalo cidna aanay haysanin habrirta iga soo waday Maam Jawaar ii keentay alxamdulillah Maam Jawaar sidoomiye ii keentay isbitaalada dalka ayaa xaaladeeda caafimaad wax looga qaban waayay gabadhan sidoo kalena hooyadeed ay ku dhimatay qarax ka dhacay dalka cadaalad cadaalad maantana magaaladiisa wareegaaniin sariira saarna afar قلنا حتى يوصل انت ويا ودي وين وصلوا انا لا اسكي عفي الحمد لله si ay u hesho dhibane Amaal cadaalad waxa rajadaas qaba gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka Banaadir Ibraahim Mahad alle noocan oo kala ah soo koraya daayar in lagu xaqiijiyo xubnaheedii xubnaha kamid ah ay weyso waxa aan aad ugu xunahay waxaan rajaynaynaa insha Allah in cadaaladda keeni doono rabigii gabadha masaakiinta jirkeeda kala taalay xadgudbay ku gardabooday insha Allah waxaan rajaynaynaa in cadaaladda keeni doono amal waxaa lagu keenay gobolka Banaadir hay'adaha magaalada Muqdisho miyaha gobolka Banaadir عمل سيدنا جدا حتى وفرصة هاي على الجنس إن مكان عقمات ولا يوان بحره لكن هو أمال حير الجنس hadda Amaal waxa ay heshay kaliya waa caafimaad dhanka dibadda ah laakiin waxa intaas oo dhan alla ka suuro galiyay gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab taasi oo si aan gambasho lahayn si ay u hesho gabadhan caafimaad dibadda ah waxay u soo dhameysay lacag iyo fiisihii loogu qaadi lahaa dalka Turkiga taas oo bixiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir maamul hufan naxariis badan bulshadooda ka warqaba gudoomiye jazaakumullahu khayr anagu waxaan nahay haween waxaan nahay birmageydo waxaan nahay kuwa u nugul wax walbaba waxaan nahay kuwa daleesha yaallo waxaan nahay kuwa dadka u dabacsan waxaan nahay kuwa u baahan in loo naxariisto hooyo waa hooyo hooyaduna waxay jeceshahay ilmaheeda oo qurux badan sideed u malaynaysaa hooyada maalin walba gabadheeda oo noocaana ay ka soo horbaxayso ma nool already way dhimatay hooyadaas marka soo dhawow Maxamed Yaxya Jinow Fab Somali TV Muqdisho